Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Qaaradda Afrika. Maanta waxaan ka hadlayaa qaaradda Afrika, gaar ahaan dhanka badka ama masaaxada. Halkan waxaan kuu soo gudbinayaa tobanka dal ee Afrika ugu dhulka weyn iyo macluumaad degdeg ah oo ku saabsan tobankan dal ee aan ka hadli doono. Waxaan ka soo bilaabayaa lambarka 10aad ilaa aan ka geeyo kan koowaad ee ugu dhulka weyn. Lambarka 10aad Mauritania. Jamhuuriyadda Islaamiga ee Mauritania waa magaca rasmiga ah ee loo yaqaano. Badka Mauritania wuxuu gaarayaa 1,30,700 oo kiiloomitir oo square ah. Caasimadda Mauritania waa magaalada Nouakchott. Mauritania waa dal carabeed oo ku yaalla waqooyi galbeed qaaradda Afrika, waxaana ku nool dad ka badan 3 milyan oo qof. Lambarka 9aad South Africa ama Koonfurta Afrika waa dal ku yaalla Koonfurta Afrika. Badka dalkan wuxuu gaarayaa 1,221,000 oo kiiloomitir oo square ah. Waxaa ku nool dad ka badan 40 milyan oo qof. Caasimadda South Africa waa magaalada Pretoria. Lambarka 8aad Dowladda Mali ee galbeedka Afrika dhacda waa dal xiran oo aan wax badan lahayn. Waa dalka 8aad ee Afrika ugu dhulka weyn. Badka Mali wuxuu gaarayaa 1,240,000 oo kiiloomitir oo square ah. Caasimadda dalkan waa magaalada Bamako. Gumaysigii Faransiiska ka hor, Mali waxay ahayd dhul xadaarad iyo horumar aqooneed ka jiro. Dadka Mali ku nool waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan 15 milyan oo qof. Lambarka 7aad Dowladda Angola ee dhacda koonfurta galbeed qaaradda Afrika. Badkeedu wuxuu gaarayaa 1,246,000 oo kiiloomitir oo square ah. Caasimadda Angola waa magaalada Luwande. Waddanka Angola waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 25 milyan oo qof. Lambarka 6aad Dowladda Niger oo sidoo kale ah dowlad xiran oo aan wax badan lahayn. Waxay dhacdaa galbeedka qaaradda Afrika. Magaca Niger wuxuu ka imaaday webiga Niger ee mara dalka. Badka Niger waxa uu gaarayaa 1,267,000 oo kiiloomitir oo square ah. Caasimadda Niger waa magaalada Niamey. Lambarka 5aad Dowladda Chad ee dhacda bartamaha qaaradda Afrika. Xilliyada qaar waxaa lagu daraa wadamada Carabta maadaama ay ku nool yihiin dad badan oo Tashadiin ah oo ku hadlaan luqadda Carabiga. Waa luqadda rasmiga ah ee dalka. Badka waddankan wuxuu gaarayaa 1,284,000 oo kiiloomitir oo square ah. Waa dalka 5aad ee ugu dhulka weyn qaaradda Afrika. Caasimadda waddanka waa magaalada N'Djamena. Waxaa ku nool waddankan dad ka badan 13 milyan oo qof. Lambarka 4aad Liibiya. Markan waxaan soo galnay wadamada aad u dhulka weyn ee qaaradda Afrika. Waa dal carabeed ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika. Waa dal ka mid ah dalalka caalamka ugu dhulka weyn. Bad gaaraya 1,759,000 oo kiiloomitir oo square ah. Waddanka Liibiya waxaa laga taliyaa magaalada Trabulus ama Tripoli sida dadka aan Carabta ahayn ugu yeeraan. Inkastoo Liibiya saas u dhul weyn tahay, haddana waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 6 milyan. Lambarka 3aad Jamhuuriyadda Suudaan. Suudaan waxay ka horreeyay 2011 waa markii ay go'do koonfurta Suudaan. Suudaan waxay ahayd dalka Afrika ugu dhulka weyn, laakiin hadda waxay ku jirtaa lambarka 3aad. Bad gaaraya 1,861,000 oo kiiloomitir oo square ah. Sida aan naqaano, caasimadda Suudaan waa magaalada Khartoum. Suudaan waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 30,800,000 oo ruux. Lambarka 2aad Koongada Dimuqraadiga waa dal dhaca bartamaha qaaradda Afrika, inkastoo uu badan yahay koonfurta qaaradda. Bad gaaraya 2,344,000 oo kiiloomitir oo square ah. Dadka ku nool Koongada Dimuqraadiga waxay gaarayaan 82 milyan oo qof. Dabcan caasimaddu waa magaalada Kinshasa. Dalka koowaad waa dalka ugu dhulka weyn qaaradda, laakiin wax yar jooji muuqaalka oo isku day inaad sheegto dalkaas. Dalka koowaad ee Afrika ugu dhulka weyn waa Jamhuuriyadda Jazaa'ir ama Algeria sida ay ugu yeeraan dadka aan Carabta ahayn. Waa dal carabeed oo ku yaalla waqooyiga qaaradda Afrika. Waa waddanka lagu magacaabo waddanka 1 milyan ee shahiid. Gumaysiga Faransiiska ayaa muddo aan badnayn ku dilay dad ka badan 1 milyan oo ah Muslimiin Aljeeriyaan ah. Badka Jazaa'ir ama Algeria waa 2,381,000 oo kiiloomitir oo square ah. Algeria waxay ka kooban tahay 48 gobol, waxaana ugu weyn gobolka Tamarasta oo ah dhul aad u baaxad weyn. Waxaana dega gobolkaas qabaa'ilka Dawaariqa ee caan ku ah ku duubashada marada madaxa iyo afka. Waa dad aad u dhaqan fiican, aad u akhlaaq fiican. Gobolkan Tamarasta kaligiis waxa uu ka wen yahay wadamada Suuriya iyo Jarmalka oo la isku daray. Weliba waxaa soo haraya masaafo kale. Caasimadda Algeria waa magaalada Aljazaa'ir ama Algiers sida ay u yaqaanaan dadka aan Carabta ahayn. Waddanka Algeria waxaa ku nool dad lagu qiyaasay tiradooda 37 milyan oo qof. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.